meeshan waxaa ku aasan dad kumayaal kun ah oo dhulkan ku wada aasan marka faatixada u maray ilaahay maartay inuu ka raadli noqdo ummadda halkan ku aasan ee lagu laayay oo isugu jirtay caruur yar yar iyo hooyooyinkoodii dad odayaal ah dad waxgarada aqoon-yahan dad ku eedaysnaa inay owanalf ay yihiin dadkaas oo dhan baa meeshan ku aasan shacbi aan waxba galabsanin ayaa waddankan ku aasan bal markaa si guud faatixada loogu maray ilaahay inuu ka raadli noqdo ummadaas waxaan ognahay meeshan jeelogaadeen markii la bixinayo waxay ahayd saan filayo wixii loo soo gaaray 2007 miyahay 6 miyahay meelahaas ciqaab wuxuu ahaa markii hore qabiil loo maleynayay halgankii owanalef inuu maartay meelaha ugu badan qabiilkaas ay xuduntiisu tahay hawlgalladiisii iyo dagaalada ugu badnaayeen deegaanka dadka joogay waxaa loogu talagalay shacbiga in lagu ciqaabo ciidan looma dhisin in lagu ciqaabo waxaa loogu talagalay jeelkan loo sameeyay wuxuu ahaa shacbigii in lagu ciqaabo dabcan waana lagu ciqaabay waxaan xusuusanahay xilli amar aad iyo aad u weyn la bixiyay oo ah shacbigaasi guud in loo laayo waxay ahayd taariikh ahaan waan xusuusanahay 2007 bishii maarso iyay ahayd waxaa dhacay dagaalkii la dhihi jiray Cuballe 24 buu dhacay mala zanaawi wuxuu isugu yeeray taliskiisii ciidamada iyo guddigiisii amniga iyo isugu yeeray 7 beri bay shir ku jireen shirkooda wuxuu qabsoomay oo bilowday 20 7 berina shirkooda wuu socday go'aankii ka soo baxay wuxuu ahaa in si aan kala hadlayn loo laayo dadka waxaa gudoominayay mala zanaawi shirkaas isaga gudoominayay waxaa waajibka iyo hawlgalka fulinayay generaal la yiraahdo Samora yaa fulinayay iyo nin la dhishay Abarra oo markaa joogay ilaahay Hararge iyo nin kale oo hadda magaciisa aan xusnaa generaal saddexda iyo macaamil afarta Tigray bay ahaayeen qorshaha ayaa dhistanka dagaalku wuxuu ka bilaabanayay alaas xilliga ayada waan xusuusanahay go'aankooda markuu soo baxay baan anagu ogaanay go'aankan soo baxay iyo baaxadiisa iyo yoolkiisu wuxuu yahay yaan ogaanay in qorshahan dhan lagu fulinayo shacbiga yaan ogaanay go'aanku waxa dadka in la laayo la soo qabto hantidoodana la dhaco kufsi aan kala hadlahayn in la sameeyo yacni wax bini aadam lagu ciqaabi lahayo haba yaraatee aan ku jirin go'aanka iyo istaraatiijiyada la qaatay ay qaateen saraakiisha Tigrayga dhigacabka runtii ma jirin wax walba way qaateen wuu bilowday hawlgalkaas wuxuu bilowday saafilayo 11 kiimiya mise waa 1 April 2007 iyo hawlgalka xooggiisu iyo dhaqaaqay oo xasuuqa shacbigu bilowday waxaa la soo qabtay kumayaal kun baa la soo qabtay oo ragii uu carray dumar u badan xilliga laga soo bilaabo iyo intuu u dhaxaysa 2012 jeelkan jeelogaadeen waxaa ku dhali jiray gabdho bishii celcelis 8 gabdhood 8 gabdhood 5 kamidi ma saddex kamidi way umur raaci jireen aad baan uga warqabnay umusha u dhiman jireen 8daas caruurtoodii wax ka badan laba marnaba ma badbaadi jirin waa intuu u dhaxaysay xilliga ololaha dagaalka iyo operation bilaabay iyo 2012 celcelis ay umuri jirtay intii dambe way yaraatay maxaa yeelay dadkii waa waddanka ka baxa waxaa soo geli jiray oo bishii laga yaabo inuu ay marka dambe saddex inay ku soo ururtay gabdhaha ku umuri jiray halkan caruur kale ma ayna tagi jirin waxaan xusuusnahay oo la ii sheegay god halkaa ku yaala gabadh uur leh yaa lagu garaacay sidii loo garaacay waxay tiri gabadhii uur baan lahaa 9 bilood baan lahaa anigoo lay garaacayaa ilmahayga soo duulay bay dulaacada ninkan inooga sheekeynahay ilmihii ku dhacay ma ogeyn bay tiri ilmahaas marka ilmaha aan dhalay ma ogeyn bay tiri maana fahmaynin bay tiri waxaan arkay bay tiri dhiigiga socdaan arkay bay tiri gabadhaas fiiri dhiigiga socdaan arkay bay tiri marka kadib yaa meesha aan oo mar dambe oo baraarugay yaa waxaan arkay meel bulaacada ilma yar oo ku jira way macna markay miirsatay wixii ka dhaw godkaas halka ku yaala way saraakiisha Tigraygu waxay sameyn jireen kormeer joogto ah si ay u xaqiijiyaan qorshayaashii
ay amreen dadkan inay fuliyaan siday u amreen inay u fuliyeen iyo inaysan u fulin inay wax ka dhiman yihiin say u xaqiijiyaan iyo kormeeri jireen 3 sarkaal baa ku qornay aagan oo report ka diyaarin jiray waxaa la siin jiray war subaxeed si moral ya la siin jiray markuu Maladanawi intuusan baqtiina waxaa la siin jiray asagana war subaxeed intii dambe waxay siin jireen mar walba report war subaxeedka ra'iisul wasaarihii ka dambeeyay Maladanawi la oran jiray muxuu magaciis Hayla Maryam dhaslayn baa la jiray Soomaaliya wax kaasa la siin jiray fiiri يعني وحوها دمبي وضرير لقليبوها دمبي وضرير للدياريبوها عقاب للدياريبه وحاب دمتي مركز سان idiin sheegay markii hore kumayaal kun baa dhintay kumayaal kun ani walaalkay baa ku jiray Sheekh Ibrahim Sheekh Musuha wuxuu ahaa sarkaal u soo dagaalamay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed wuxuu ku naafoobay dagaaladii 77 isagoo gaashaan la ayuu ku naafoobay waxaa laga soo qabtay wadanka gudihiisa laga soo qabtay halkan la keenay jidil si loogu dilay ba halkaas meedkiis yaa la soo dhigay maalin baa wali bala dilay markii lala maqnaa 4 saac halkan la soo dhigay meedkiis kuwana ku jiray oo ilma Sheekh Muusiyo kuway dhaleen ayaa ku jiray aniga walaalkay Sheekh Ibrahim oo naafa ah oo lugoona in halkan lagu soo xiray walaalkay 4 sano halkan markuu ku jiray waa lagu dilay wuu ku dhintay هذا ما يتكسي هالكن ما يقول ما يتكسي أنا كل أنا ما أعرف حاول ولا الكيس هالكن يقول أنتي يالك لو ولا لها يجوا وضع عريانين هالكن لقى ساري وعبد الله يسجل ويلي عبد سهل يدادو تبكاس هالكن كل عقابنا لو بدي هذا يجوا وضع عريانين وريد يلان واحد ترتي كله أنا دولة مركز أيضا ترتي حوالها نجي يهنتي ذا نادي لا بقول اللحظة السنة لا تي صبح نقدر يرصدين أو ما تغير كتيرين وانكسبينه ayaga ma rasuul wax naga dareersaday dadka la laayay mood iyo nool wax ma loo reebin ma jirtada anaga sida nadaba yaani ayagu waxa man isleeyahay waa dadka ugu roonaaba oo hadii la dhilaa dhowr qof baa qoyska ka dhimatay waxa la helayaa qoysas dhan family dhan oo baabay baa la helayaa sida markii dadka laga soo qaban jiray meesha la yiraahdo malqaqa iyo garaalsha iyo dudumacaadka iyo dadka laga soo ururi jiray sibi iyo dadkii laga soo qaban jiray dhagax buuri aageedii awaaray dadka yaani ummad waxa jirtay jilbiya dhan oo saaxada banay baa jiro waxa ka noolay waxa kale jirtay hadaan gabdhii kale dhacdooyinka gaaray iyar ka taabto ma wada gaarsiin karo oo de qalbigu ma soo wada koobi karee waxa jirtay Quraash Maxamed Xaaji gabadh la yiraahdo oo laba ilmood oo mataanaha dhashay labada ilmood mataanaha markay dhashay waxa la gabadhan musheexalay nin waxa qabi jiray baa la huwaysanaa والله يحل منهم ويسرق ما يبيتر والله صار صارت تدوها بملطة بتاريخ الشيء برنامج على دقيقة بالله قراعي وسق يبلعد يقرن يوحب على الغشبي حتى عمليات يقلوا الله دقي يقعد على الغشبي ضش على الغشبي كمان دي ويبدلن تيسير على الغشبي حاجة مركب يبدلن على الغشبي صاري تدوها بملطة أيدي يلا بدأ يدي والبو إسراع نص أو يدمكن قريش واحد الحاجب على بيت كده كمان ناس هي حبور بينها وحاول بعدين كان ماشي كل صمر وحر تكل هذا قلبي جاي بسوق بكره معها يعني كنت واحد عيبها واحد اللي بدونه وواحد كده بتجدونه تاريخ ده وحافرا قال دعوات بافرا كنت محكمة دجالك عالمية وان كفرني هذا نواسي ودي دونا فدرالك وان كفرني وان ودي دونا قال دعوات كاسو شقينا يا عد كستو عقار تعلق يا لتنا وحن رجينا إن إيمان دون الشرع جورتيسه كوي Soomaalida ah ee lagu fulinayay ee tii qorshaha loo dhibay iyagu badsaday si la filayay inay wax u fuliyaan boqol jibaar bay uga badiyeen iyaguna way joogan qaarna waa runtii waa baxsaday waxa uu gacan galay waa inay ilay waxa hadda la yiraahdaa hal iscafiyo la yiraahdaa saxaafada hal iscafiyo la soo mariya okay in la iscafiyo ma xumo laakiin aan fasiro hal iscafiyo macnaheedu waxaan ognahay dadka wax dilayay ee Soomaalida ah ee Tigraygu adeegsanayeen waxay ahaayeen dad Soomaali ah oo la yaqaan isaga oo yahay kan in hebel wuxuu fulinayay dilka inta oo qof 20 qof buu dilayay asoo la garanayo inuu hebel yahay oo hal qoys halka qoys faamiligoodii waxay yaqaanaan dadkoodii inuu xasuuqay in hebel marka waxa noo muuqanaysa hadda dadkii inay u muuqato fursad in hebel ay heerkoodii si dhaqanka Soomaalida ahayd ay dib ugu duulaan oo ka aarsadaan
macnaha ugu horeeyaan uga jeedno hal iscafiyo waxa weeye shacbiga iyaga dadkii laayay ee dambiilayaasha gacan ku dhiglayaasha dambigii qofkaas qof kaliyu galay inuu soo noqonin qof beel inaan loo doonanin heer hebel inaan loo doonanin heer hebel inaan loo raacanin heer hebel inaan loo aara doonanin inaan la kala aarsanin macnaha ugu weyn hal iscafiyo markaan leen horta kaa wey ma aha gacan ku dhiglaha dilay dad gacan ku dhiglaha laba shardi buu leeyahay cafiskiisu marka ugu horeysa qofka horta doona in la cafiyo waa inay asaga ka timaado yiraahdo hal la cafiyo dambi baan galay walaalayaal hal la cafiyo waa inuu yiraahdo marka ayay u furan tahay qofkii dhibanaha ahaa agoonkii rajaygii iyo waalidkii dadkoodii leeyahay gablanka ahaa inay cafiyaan ama ay diya qaataan sharciyan waa sida horta qofku waa inay asaga ka timaado qorshaha waa qofku horta uu dambigu galay marka ugu horeysa horta waa inuu ka soo noqdo ilaahay waa inuu tooba keeno go'aansadana dambigii inuu ka soo noqdo qoomeeyana wixii dhacay ummadiina isu dhiibo waa nooca wey yaa cafii kara gacan ku dhiglahan aniga dilay ilmahaygii aniga dilay walaalkay aniga dilay xaaskaygii yacni markaan dhaho aniga kan baa dilay kana aniga aabbahay dilay markaan idhaahdo يعني الشريعة الإسلام عفيس كستوى كهر من الشريعة الإسلام قف عفيه كريم دولة بان عفيه كريم أرور بان عفيه كريم ابكلان عفيه كريم يعني قف أسأل الرجال ربائل وعفيس البضو قف كي نبك اللوجي يسير عفيس كي وإنه مركز وحون دورته أما عفيس بحيه أما الديقاته أما قصاص في شده يعني الشريعة الإسلام قواسده أغلي ونوع نوعه وحلينا مركز وحوي وردك الدم بيجا قالي والله وذا يقانا طب كان ليسان ويدي يقانا إلهي أطوبة كان ددك نوصل نقط لكن يسوى ولي ماذا حتاجيه يسوى ولي دارنا يسوى ولي دون ينو ضدكين بعضه وروح اسمه كيلان هدي اللي مودا إن لك العب سنة هدي اللي مودا إن عقد تقولين ماذا الله غير سنة وروح واحد له كرمه دولته وحقيقة على شيء يدو أين حدا سجود يعني يوفر سعرين مصالح للبلسرة وضد كان علاضي عقدة كان حدلن جبهة أول لفنا وحاجات إلى بلشوا كلا نبض قش لكن دنبجة شريعة الإسلام كأدني وحويه بيتك قف كي دباتو قادي يهل كي دباتو قادي يعدي واحد أحمر وين ودين عاوز شيء اسمه دولة مع فيه كرتو عفيس كهر معنا شريعة الإسلام جبهة مع فيه كرتو عفيس كهر معنا هي شريعة الإسلام جبادنا كمان دجان كرو ميلنا وجمع بنانا أول لف iyo maamul iyo dawlad meel lana uga ma banaan abs wax dhici kara haba yaraatee ma yaani waxa weey dadka ayaga ka timaado laakiin qofkii oo dinar hayo wali qofkii oo dhaaran hayo wali qofkii oo wali is abaabul hayo hal cafiyo in la yiraahdo taas wax aqliga bini'aadamkan oo gal maaha sharciga qaanuun oo gal ma jiro waxaan leeyahay marka ayaga u naseexaynayna in ay dib ugu soo noqdaan dadkoodii cafis inay dalbadaan qof walba maalmo kooban kadib ilaahay uu dil uu dhimay dadkoodii inay dib ugu soo noqdaan dhalinyaro la majar habaabiyay dadka lagu leeyay iyaga uma qorsheysnayn inay dadkooda dilaan waa la qaribay waa la majar habaabiyay sharaftii iyo qiyamkii dadnimadii baa laga dilay dadkooda dib ha ugu soo laabteen cafis ha weydiiyeen waxa markaas runtii markay taas u dhacdo waa kaliya intaan doonin maahan markaa inaan kala argoosanayn maaha markaa inaan qofkii lahayn dambi aan lahayn maalin baa dambi gasho waa lagu ciqaabaya macnaheedu maaha waxyaabahaas oo dhan waa fursado furan waa in laga faa'iideysto shacbiga iyagana waxaan u sheegaynaa dambiga qofka galay baa lagala xisaabtami karaa laakiin qabiil lagala xisaabtami karo shacbigii isku daya iyo ciddii isku dayda in ay dambigii qof mujrima oo gacan ku dhiiglo oo ilaahay iyo diinta ka baxay uu dambigu galay inay qabiil u doonato isagoo masaakiinaha oo lala dilayay oo dadkiisii baaba'ay inay u doonato oo aara u doonato qofkii isku daya kama cid ka aqbalaysaa ma jirto